laakiin maanta wax kastoo liigu gumaysan jiray banaanka yimaadeen ma fahanteen fiidiyogan waxaa iga duubay nacas dhalay oo ay oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aanan gelin oo Ibrahim la dhaho fiidiyogan waxa iga duubay biyo waxa igu daray kaniin ma lahan wax daawo oo igu daray adi anyway fiidiyoga buu iga duubay waxa sameeyay oo igu rikaateen jira asi kaligiisna igu murid kaateen jirino cadeynteedana magaalada Muqdisho taala hore baa u xiray nimanka ma fahan muuqaalka like saar sidoo kale asxaabtada la wadaag aragtidaana qaybta commentiga noogu reeb baryaha kani waxa soo badanayay fadeexayn iyo waliba rakaatayn iyo dhibaatayn loo geysanaya hablaha Soomaaliyeed na dhalay nala dhashay ee noo dhaxay maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno ama aan halkan fariin yar aan ka gaarsiino wixii karaankeena ah ummadda gabadhani lagu magacaabo Fahme Axmed oo ahayd gabar caan isla markaana ahayd tiktokerad ama tiktoker ahayd oo inta badanna dhalinyarada dhanka majaajilada iyo waxyaabaha iska madadaalada soo dhiga ahayd oo dabcan 24 saac soo dhaafay يعني هذا الهين تهدو براه بالشدة عادو بدنا أيان إننا وحي مركز أركتده إننا أما أراه أو ضدك أن جالسين كرنا هالك كسو قد بيننا إن واحد يجري أما صومالي ده حد هذا عنا دعتي دوا ولا قبطع إن تاسي وحنا ولد الله هاي وحنا نهرت ويد عن مالكي إلهي سبحانه وتعالى أقرأ إلى دعان وبين داعين كما يدبدعين كما ينسوهر مري مركان سيدا ليه هاي وحي حن ومركا إيادا فضيحو يدباتو وحن ومركاس نفتك نولشا يعني محو هاي كوكوسو سنتو إلهي لو ما نسبيا نفعي شيطان بلو نسبيا وحي السن وكو هقاقو وكو قبصومو oo khayr iyo wanaag kuugu jiro iyo horumar in nolol fiican kuugu jirtana ilaahay ayaa loo nisbeeyay oo ilaahu adaa mahad la ay raahdaa waa looga xamdiyaa wixii naftaada iyo shaydaan ay ku horseedeen oo gashayna ilaahay looma nisbeeyay laakiin ma dhigi kartid ilaahay baa qoray waxaan wax iska caadi ma dhigi kartid markaan sidaa leenahay gabadhan walaasheena ee maanta dhibaatada iyo ceebta iyo fadeexada loo dhigay social media inagoo ka xun aadna uga murugsan la qaybsanayna murugada iyo dhibaatada soo gaadhay ayaa waxaan fariin u diraynaa dhammaan bulshada meel kasta oo ay joogto iyo dhalinyarada kow gabadhan iyo wiilkan yacni kee khaldana maxayse waxaan ku imaatay inagu ma nihin dad marka iyada ah meesha dhibka ka dhacay taagnaa oo xugmin kara waayo waxa arkaysa social media wax yar baa dhacaya wixii baa waxa ka hadlaysa kumanaan kun oo qof markaas qaar waxay ku dhaaranayaan in iyagu meesha waxa markii la sameeyay sida ay ahay iyagoon ogeyn oo kaliya sida dadka mujtamaca u soo gaaray muuqaalka ama clipka iyaguna u soo gaaro kamid ah markii inuu taa ka fogaanayna xaqiiqada meesha taala inagoon ogeyn haddana kow gabadhan waxaan leenahay waa laga khaldan yahay oo waxa ka khaldan ninka ragga ah laba xiniyoodka ah magtiisu 100 tahay adduunkan markii la yiraahdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo cid awoodiisa imaamulkiisa la qaybsata aan jirin markii laga imaado ibn aadanka dhexdiisa rag baa hogaamiya mas'uul ka ah waana sababta nabiyaashii aan looga dhigin dumar ee nabiyaasha dhan looga dhigay inta nabi ilaahay uu soo diray ama kitaab ku soo degay ama suxuf ama waraaqad ay ku soo degtay looga dhigay rag looga dhigay waayo looguma tirigelin dumarku inay wax hogaamiyaan iyo in ay wax mas'uul ka noqdaan taas ayaa halkaas iyada amaartay daliil kuugu filanba marka ninka ragga ah ee ilaahay adduunkan inta saaran ee bili aadmi ah ilaahay rag buu mas'uul uga dhigay mas'uulka ah ee maanta ku dhiiraday in walaashii ama gabadha markaasi iskuba aamintayba uu maanta ku fadaxaysto waxyaabahaas oo kale ninka isaga ah horta maanta dil toogasho ee baan anigu ku xukumi lahaa anoon u fiirinin xitaa qofkani ma qof buu dilay ma dhii kale galay anoon u fiirin
taas la ajligeed baa noloshiisa aysan waxba ugu fileene toogashan ku xukumi lahaa. waa haddii maanta aan meesha ay ragga qaar joogaan ama xukuumad ay ka joogaan ama maanta muxuu ahay awood ay ka joogaan aan ka joogo. waa fikirkii aragtideyda. waayo marka waxaan ficilka hadda aad samaynayso positive iyo negative baa laga fiiriyaa. maxaa dhib ah oo kaa soo gaarayo, maxaa sumcad xumo iyo sharaf darri kaaga halkan kaa soo gaari karo, maxaa cawaaqib xumo iyo yani hadduu mustaqbal xumo iyo dhibaato kaa soo gaari doonaa, maxaad adiga responsibility qaadi doontaa oo mas-uuliyaddiisa aad qaadi doontaa, maxaa yani muxuu ahay faa'iido aho kuugu jira. markii dhanka negativeka laga fiiriya cafwan dhanka positivekana maxaa faa'iido kuugu jira, maxaad maanta adduun iyo aakhara midna aad ka faa'idi, maxaa sumcad iyo weji iyo dadnimo aad ku yeelan oo lagugu xasuusan. dhanka positivetana waa laga fiiriyaa. laakiin intiba haddaadan fiirinin ood gasho wixii isaga ahaa un aad iska dhex istaagto waxay la mid tahay xoolahan dareerahaya ee saakantay iska dareeraan. xoolaha laftirkooda dhug bay leeyihiin oo waxay ogyihiin meesha daaqa leh, meesha biyaha leh. markay oomaan way erodhayaan, halkay dawda ay biyo ku ogaayeen bay aadayaan. markay baahdaan halkay ay doog iyo caleen uga barteen bay aadayaan. ilaahay xoolaha inagu uu naga fadilay oo bini aadam baa nahay, bini aadam ayaan nahay. marka adoo waxaasoo dhaan arkaya in wixii haddaad gashay aadan hor iyo gadaal midig iyo bidix midna aadan fiirin oo dhex gashay, nin ragana aad tahay, macdallahi noloshaada wax ay haba yaraatee soo kordhisay ama ay tartay ama raganimadaada maanta adduunka kuu yaallo ma laha. waa sababtaan u leeyahay qofkaas haddii maanta aniga aan xukuumad dad meel ay ka joogaan aan ka joogi lahaa waan dili lahaa runtii. ama xabsi daa'im baan ka dhigi lahaa haddaan dilin xitaa. waa isla dilmadii xabsi daa'imka laguu sheego un dilmo maogtay sargaxane nolol aad qol un ku nooshahay wey. marka taa waa intaasoo waa midda ninka oo khaladkiisa sidaas ayuu yani yuu ku qumaya ama u noqonayaa. waxaa soo haray gabadha. waa sida horaan horta u sheegnay oo dumarka iyagu inta badan waxaa la yidhaahdaa waa indha ku garaadle oo intooda badan kama fikiraan waxa dambe imaanaya. waa intooda badan. taasina dee waxa inaga dheheenna ma ahee waa wax horaan loogu mahmaahay oo la sheegay. diin lagu sheegayaa iyo dhaqan lagu sheegayaaba waa wax horaan loo sheegay. oo dumarka inta badan markii lagu leeyahay dumarku tusaale oo kale haddaan usoo qaadano waxay jecel yihiin dadka hantida leh ama lacagaha leh way jecel yihiin. dibka ma aysan fikirin oo ma aysan dhihin qofkan beri ka maalin hadduu waayo lacagtaasi soo ma dhici karto. qadar rabbi soo kuma dhicin ama hadda ka horba kuma dhicin ama kuma dhici karto qof xalay taajir ah markuu soo xaroonayay maantana sabool ah. saas darteed qofka aad raacaysa nasabad ku raac hadhow dambe yani muxuu ahaayey yani isaga laftirkiisa laga yaabo mustaqbalka inuu waxyeeshee ku raac ma dhahayso. mustaqbal dambe kama fikirayso, keliya waxay fiirinaysaa un xaadirkaa la taagan yahay. waana sababta loo leeyahay indha ku garaadle. kas naageed waa kadaloob rag kaaga dambeeyey bay yidhahdaan soomaalida meelaha qaar saas kuma mahan. yacni garashada dumarka waa kadaloob rag kaaga hal fadhi oo gadaashaa hal fadhi oo yaroo hal daqiiqa la wada fadhiistay oo nin ragga uu kaaga dambeeyey buu ku bedelayaa. wax walba isku ogeydeen halkaas mid qofka ay jaanis ku heshay ay la fadhiisato buu ku bedeli karaa. waayo wixii adaad u sheegaysay wax aan ka ahayn run iyo been buu isa ugu fatihi waaba tii aamintoo dhaqaaqdaba. marka iyadoo sidaa ay tahay haddana dumarka lama dhihin xoolaa tihiin bahaayiin baa tihiin waxaad doontaan sameeya lama dhihin. oo diinteenna waxay soo dejisay asturnaan, akhlaaq, edeb, guri joog, kala dambayn iyo nidaam. laguma dhihin adigu dumar baa tahay aqli malihide yani maxaan ka wadaa dumarku yani sidan weeye way jilicsinta wey iska dhaqaaqa lama dhihin. waxaa marka ula jeedaa gabadhan laftirkeeda tiktoka marka ay ku jirto waxyaabaha ay soo dhigi jirtay run ahaantii markaan anu research dib u sameeyey oon galay profilkeeda ama aan ogaaday ma ahayn wax yani caadi ah oo hadda iska caadiya ma aha. maanta xilligan la jooga caadi ba iska tahay laakiin diiniyan iyo dhaqaniyan ma aha wax wanaagsan.
afka iyo adinka iyo muuqaal ahaanba waxa ay soo dhigaysay maaha wax wanaagsan ilaahay baa runta nagu leh marka gabdhahayna Soomaaliyeedna waxaan leeyahay intaysan wax idinku dhicin ka hor taxatara maanta gabadhan laba gabdhood baa israacay magaaladani aadeen mid baa waxay xiratay dhar jug ah oo qarfaal ah waa weyn bay xiratay inda shareer bay xiratay ama niqaam waxa u taqaanay ama ay sabar xiranay xijaabiyo waa weyn oo dhar weyn asturan oo gub oo qarfaal oo bay qaadatay moogta midna waxay xiratay dhar khafiif ah oo yooyo ah oo ku dhadhagan oo jirkeeda la wada arkayo ku dhadhagan bay xiratay kaasay joqora u labisatay waliba oo qamaar yar iyo xisaan madax ugu xiratay oo laga yaabo xeer qamaarka hadduu saa yar dhaho ama meel uu saa ka yar noqdo inay noqoto inta ka qabo waxba inay noqoto laga yaabo markii labada gabdhood markay israacaan raggu waxay ku mashquulayaan ama taageedka ay saarayaan ama ay 24 saac u yeerayaan ama ay daba ordayaan middan qaawan ma ku fikiri marka caqligaaga ma ka dhaadhicin gabadhan qaawan ninka daba ordaya mustaqbalku ka raba ma ku fikiri jacayl iyo hami kale kaga jira maya maadaama ay qaawan tahay wuxuu og yahay gabadhani inay u soo labisatay sida joqoraayaha ama qofkan yani muxuu ahaayay adduunka ka leesta ka saas darteed tii camba kare qof walba cun يعني kugu badin warka oo sidaas marka waa in gabadhan marka ay ogaato waxaas gabadhan xijaaban ee jugta qamaamudanna waxa looga leexday xijaabka haysan moodi oo muxuu ahaay yani waa raggu taas meelaha la aan ilama hadlaan bay dhigi laga yaabo inay dhahdo oo kama seerta mid kale laakiin ragga maanta jooga badankooda waxay iska yihiinba mustaqbal ba ayagoon u joodin haddayba arkaan gabar xoogaa jirkeedu bannaanka yaalo dhar ku dhagan wadato inay ka daba galaan raadiyaan lambar iyo qordhahaan 4 sac daba ordaan garabka ay ku dhuftaan intay waddada ka hor imaadaan ayagoo dib usii fiirinahay mararka qaar la arko waxaasoo dhan ayadaa marka isku keenayso waxaasoo dhan ayadaa isku keenayso kow isha magaaladaas oo dhan bay aruursanaysaa labo shaydaan iyo caliabooti oo jin bay isku soo jiidaysaayo ayada ay yani muxuu ahay ugu talagashay inay soo raacaan marka bari ka maalin ama kuwii wadada ka soo qabsaday mid kamid ah sidaas oo kala muuqaal aan shaxmaha ka duubi ama ku wadada ka soo raacay oo jin ay ka dhaxqayli oo dhihi muxuu ahaay sidaas aan halkaas ka soo raacay marka gabdhaheennana waxaan dardaaran leenahay walaalayaalow oo hintiina iyo dhibkiina iyo rafaadkiina iyo hagardaamadiina aad bay noo dhibaysaa innagoo badan oo ragga Soomaaliyeed kamid ah is ilaaliya sidaas iyada ana sameeya haddii social media waa lagu wada jiraa gaal islaam waa la buuxay si edeb loo akhlaaq la ugu jira gabdho badan oo social media ku jira oo edeb ku dhex jooga jira oo afkoodii adinkoodii iyo dhaqan xumadooda midna aan la arag baa jira dadkuna structure ahaan wixii marka ay ka arkaan bay kugu xukminayaan si walbo haddaad muxuu ahaayay qof xun u tahay laakiin dadka markaa muuqaal ahaan iyo haykal ahaan dad qof wanaagsan ay ku arkaan oo waxba muxuu ahaayay markaas iyada haddii la yidhahdo qoftii habla ahayd ama qofkii habel ahaa waxaasaa ku dhaco qofkaas qof wanaagsan ba haysay sidaa u qabsatay la yidhaahdo ilaahay iyo adiga unbay wixiina sir idin yihiin cid kaloo kula ogmala laakiin dadka mujtamaca meesha joogo qof wanaagsan baa u tahay laakiin haddii dadkaas ku karaahiyeystaan ku nacaan oo qof xun ay kugu tilmaamaan mujtamaca meesha joogo qof xun ay kugu tilmaamaan oo isku karaacaan qof xun tahay bari ka maalin hadday arkaan dhibkaadii way kugu qoslaan waxay dhahaan waan filahay waan sugahay waan kaa sugay ku dhahaan ma garat marka ilmaada riyaalow sidaas sameeya aragtidiina qaybta comment na wadaaga muuqaalka xiga intaan ka gaaraynana nabadgelyo